magaalada isku filan dhib ayay soo martay intii ay haysteen xag jirka. hadda muddo 8 bilood ah dawladda ayaa la wareegtay waxaana muuqda isbedel wanaagsan. waa runta bishaaro xilligaas ma jirin ganacsi wax shaqo ah kama socon magaalada. hadda sidii hore way ka fiican tahay dhaqdhaqaaq ayaa ka dareemaysa ganacsiga deegaanka isku filan. haa runta Nasra walbadan ya ku faylana sidii horena dhanaga ammaanka ganacsiga iyo dadkii deegaanka iska filan oo reed hangnagadaayaan. dad badan oo shaqo la'aan ah ayaa hadda fursad shaqo helay. taasina waa wax wanaagsan oo lagu farxo. markii ay gacanta xag jirka magaalada isku filan ay ku jirtay dib u dhac badan ayaa saameeyay magaalada balse hadda si tartiib ah ayay u soo ficnaanaysaa. bishaaro walaale isbedelka waa laga dareemayaa. hadda baad u jeedaa dhaqdhaqaaq ka socdo magaalada isku filan. haa runtaw waab aragahayna dukaankii filsan. haa abaayo waa kan dukaankii filsan. haa kan waa broogna dukaankii filsan. bishaaro filsan goobteedii ganacsiga way hagaajisatay. waad aragtaa sidii u habaysatay maasha allah. haa mayba ii muuqde malay suurad badan oo ka aalasa inay hata laha qowadi. waa runta waan u jeedaa sida ay u samaysatay meheradii ku soo laabashada isku filan. wax badan ayaa iska bedelay magaaladii. lamana moodaba in hadda lagu soo laabtay sida goobaha qaar oo la habeeyay. waa wax lagu farxo. waa runta waa wax lagu farxo. filsantii meeday maba arka anige ma qoftaasaa sii jeeda ee alaabta gacanta ku haaya. haa qof ka sii jeeda iyaba oo alaabta galanta ka haaya ma goradaas miya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waa la soo dheeraaday maanta. waa bishaaro iyo nasro. soo dhowaada soo dhowaada. waan dhownahay walaalo. halkaan ii soo fariista. maasha allah aragtidiina abshir. fariista. maanta waan ku soo booqanay. waxaan isniri bal gabadhii filsan ahayd ka war doona iyada iyo meheradeedii. sidaas ayaanu kuugu nimid. haa sida nasr sheegtiyo ha ka booqani geeka. allah waad mahadsantihiin sida aad ii soo booqateen. waana idinkaga mahadcelinayaa booqashadiina quruxda badan. adigaa mudan filsan. waan isku leenahay waana waajib inaan iska war hayno in leen dad walaalo ah ayaanu nahay. adigaba waadna soo booqan lahayd filsan. bal ka waran ganacsiga kalluunka oo caadi ahayn ayaa u jeedaaye. run ahaantii maxuma saaxiibayaalow marka loo eego deegaan hadda soo kabsanaya oo wax weliba bilow oo kale ay yihiin. gaar ahaan marka la eego kalluunka dadka faa'iidadiisa. horta kalluunka waxa aad moodaaba dadku inaysan aqoon faa'iidadiisa oo aysan warba ka hayn. haa runtaw malaayka wayba u saleeyay faa'iidooyin fara badan oo hata geeka inta lahanka koobo korna. faa'iidadaasay dadka ma ku warqaban. saas darteed dadka intii laka baraarujiyaan baahan. soo kale malaayka wayba u sayaa malaayka walyaabo onka muhiimsan oo dalkayna hasaaro waaye. mana ku warqabna faa'iidu saleey maan aamana. dadka kayna bulshadii tayna inta una ka wacyigelin aamowka malaayka faa'iidu san leey waana ku faa'iideysan. wayba lana aamo malaayka ku faa'iideysada faa'iidu saleey. dadkii kayna ma kasaayan aamowka malaayka faa'iidu san leey. saas daraadiye wayba una fadaane in dadka ka wacyigelina waan anshaagna aniyo malaayka say gadan waana aaman. deegaan soo kabsanaya nolosha caadiga u soo laabanaya uma xumin haddaanu nahay reer isku filan. sidee ila tahay wax kastaba waxaa lagu gaarayaa tartiib. kalluunkana waan baran doonnaa. waxa aad moodaa in maalinba maalinta ka dambaysa uu soo fiicnaanayo dhaqdhaqaaqa ganacsi. inkasta oo sidii loo baahnaa aan la gaarin weli. haddeer waxa aadba moodaa in lala daalaadhacayo nolosha maalinba maalinta ka dambaysa. waa ay sii hagaagaysaa dhaqdhaqaaqa deegaanka isku filanna waa uu soo fiicnaanayaa. waa sax. allah hadal iyo iswaraysi ayaanba idiin galay. xitaa cabitaan idiinma keenin ee bal aan idiin keeno wax aad cabtaan. aaway wiilkii mahad ahaa. haye eedda filsan. war kaalay mahadow kaalay. cabitaan iigu keen martida dhaqso. war ayaanba ku daaliyey. haye eedda haddaan u keenaya. bishaaro walaalay ma garanaysaa ninkaas dhallinyarada ah ee sheekh cilmi la socda. mayay ana makasoo qofkaasayti. wejigiis wuu igu yaalaa laakiin ma xasuusto. waxaanse hubaa inuu igu cusbeen. ma garanayo sababta aan u xasuusan waaye. filsaney ma garanaysaa ninkaas dhallinyarada ah
ee shiiq cilmi la socda. yaa walla waa yaab ma garatay ninka filsan ma aamini karo inuu soo laabtay waa wax lala yaabo waxa indhahaygu qabanayaan maanta waxa hore loo yiri nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban wal ninku sheegba filsan kuriikan ho'ada kasaasa madada aragti waa dharftay haa walaalay wax noo sheeg ma taqaanaa ninka dhalinyarada ah haddaad taqaanisa muxuu yahay bal xogtiisa noo sheeg allah magaaladeennii halis ayay ku jirtaa waa bes halis ayay ku jirtaa halis ah subax wanaagsan askari subax wanaagsan adeer adeerow ma joogaa bilaal haa wuu jooga adeer waa kaas halkaa taagan kabta bilaal war haye soo dhowaada oday warsame iyo sharma arkow subax wanaagsan kabta bilaal wanaagsan oo wacan bal halkan ii soo fadhiista waad mahadsan tahay waad ku mahadsan tihiin imaatinka aad maanta ii timaadeen oday warsame adiga iyo saaxiibkaa sharma arke adigaa mudan kabtan bilaalow adigaa mudan adeer waayahay walaalayaal waxaan doonayaa inaan idinla wadaago wixii nooga qabsoomay iyo horumarka laga gaaray dhismaha xarunta booliiska ee deegaankeenna isku filan aad iyo aad ahay saldhigga dhismihiisa wax sahlan ma ahayn sida aad dareemi kartaan waxaannu gelinay dadaal iyo juhdi badan ka ciidan ahaan marka xaggeena mas-uuliyadda loo eego si fiican dhinacaas aad u jeeddaan waa la dhammeeyey dhismihii dhankaas kale waad aragtaan in weli shaqo xooggan laga qabanayo oo howlihii ay ku socdaan kabtan bilaalow hadalkaaga aad baan u gartay wuuna wanaagsan yahay waxaan ku weyddiinayaa hadda bal halkee wax idiin marayaan bal noo faahfaahi meesha ay wax marhayaan warsamow hadda dhismaha saldhigga booliiska meel fiican ayuu noo marayaa oo howlihii weli way ku socdaan si wanaagsan ayaana loo dhisayaa haye waa fahamnay haye waa garanay run ahaantii hadda dhismaha saldhigga booliiska ee degmada isku filan waxa uu marayaa heer gebagaba ah sida aad indhihiina ku arki kartaan waxaan filayaa inaan goor dhow dhammayn doonno dhammaan dhismahan inkastoo caqabado ay jiraan dhinaca dhaqaalaha markaan fiirino waxaan ku weyddiiyey kabtan bilaal bal waxaad yeeshaa si wanaagsan oo deggan wax noogu faahfaahi maxay yihiin caqabadaha jira ee aad ka cabadanaysaan haddeertaan la joogo warsame iyo sharma arkow ishiina macallin idiin ah waxaan halkan ku wadaa rasiidyadii ay ku qornaayeen lacagihii aan ku soo iibinay alaabta dhismaha oo dhan iga guddooma si aad idinka u xisaabisaan oo markhaati aad u noqotaan maasha allah waad mahadsantaha adeer kabtan bilaal waa arrin aad iyo aad u wanaagsan in aad haysaan rasiidyadii iyo xisaabaadkii oo meel ay noogu wada qoran yihiin oo ay waxayna noo idil yihiin waa arrin aad u wanaagsan arrinta jirta ayaa ah maadaama dhismihii saldhigga booliiska uu gabagabo noo marayo waxaa loo baahan yahay saaxiibayaalow qarashaad dheeraad ah oo lagu dhammaystiri karo saldhiggan dhismihiisa waana laga maarmaan in la helo qarashaadkaasi si howluhu aysan u istaagin qarashaadkaasi maxaa looga baahan yahay haddii hawshu gebagaba tahay kabtan bilaalow waxaa qarashaadkaasi loo isticmaalayaa sharma arkow si loogu helo saldhigga booliiska korontada iyo biyaha taasina waa mid lagama maarmaan u ah saldhig booliis oo rasmi ah haddii la doonayo kabtan bilaalow meeshan habeeraatee wax qarasha oo jiraa ma jiraan war cusub waan gartay sharma arkow sidee hawsha dhismaha loo dhammaystirayaa haddaan qarash loo helin bal caqliga ka shaqaysiiya rag waaweyn ayaan wadannahay ileen dad waaweyn oo meel isugu yimid arrintana qiimayn kara ayaan isugu jirnaaye waxay hore soomaalidu ugu maahmaahday nin aan run sheegin been ayaa u qarsoon marka waxaan kuu sheegayaa inaan dhaqaalo buuran aanay magaaladu haysan haba yaraatee
ii kaadiya marka hadalka ha isku celcelinina waxaa loo baahan yahay wax xal noqon karo xal waa in la helaa waa muhiim arrintaas sharmaaka ma fahamta adeer waa sax xal ayaa loo baahan yahay oo waa sababta halkan aan isugu nimid saldhigga booliiskuna waa lagama maarmaan horta taas waa inaad odayaashiina ka warqabtaan oo xisaabta aad ku darsataan wax kasta oo loo baahan yahayna saldhigga ayaa la gelinayaa ee jeeb qof kuma dhacayso waa runtaa waana ognahay kabtan bilaal sharmaaka haye bal soo hadal adigu waxaan kuu sheegayaa kabtan bilaalow in lacagta magaaladan isku filan loo qoondeeyey ay yar tahay wax kastana aan lagu qaban karin taas waa inaad ogaataa marka hore laakiin saaxiibayaalow waxaad ogaataan in amniga uu saldhig u yahay magaaladan isku filan tan kale waxaad ku darsataan saldhigga booliiska waxa uu astaan u yahay amniga deegaankeena waa runtaa laakiin dhaqaal la'aan ayaa jirta hadda waxaa loo hayo oo qarash ah haba yaraatee ma jirto meel kaloo dheeraad ah oo laga filayo oo la hubaana maba jirtoba waxaan idiin sheegayaa in amniga muhiim uu u yahay dhismaha dibudhiska magaaladan isku filan in ay yeelato saldhig buuxa lagama maarmaan ayayna arrintan u tahay in dhidabada loo taago oo la dhammaystiro saldhiggan booliiska si ammaankeena uu u noqdo mid laysku halleyn karo kabtan bilaalow waxaan suurtagal ahay in dhaqaalo dheeraad ah loo helo dhismahan ilaa hadda qorshaha kuma jirdo middaas markaa waa inaad isdaqsiisaan waxa aad haysataan ee loogu talagalay dhismaha saldhigga isku filan waayahay maxaan haynaa annaga haddeer waa gabaabsi dhaqaalihii aan u haynay dhismaha saldhigga booliiska oo aad ka warqabteen idinkaba weliba waxaan kuu sheegayaa inaan aad u beeqaaminay oo aan aad u yaryareynay dhaqaalihii aan u haynay ee loogu talagalay in saldhiggan dhismihiisa lagu dhammaystiro maahmaha duuga soomaalidu leedahay ayaa waxay tidhaahdaa hadba sidii loo jabo ayaa loo dhatiyaa marka inaad isgaadhsiisaan aad isku fillaysiisaan waxaad haysaan aad iyo aad bay idinku fiican tahay ii kaadiya marka ii kaadiya waa idin maqlay ii kaadiya niman yahow horta dooddiinnu way dheeraatay aad iyo aad bay u dheeraatay haddana isku meel ayaad u socotaan oo dhismaha xarunta booliska in la dhammaystiro way idinka go'an tahay labadiinnaba haddana marka dhinac isu raaca oo meel dhexe isugu imaada oo wax isla meel dhiga nimo waaweyn baa tihiin adeer warsamow waxaa horay loo yidhi meel hoo u baahan hadal wax kama taro waayo annaga waxaan u baahannahay xilligan dhaqaale wax kale uma baahnin sharmaarkana waad u jeeddaa in uu ka biyo diidan yahay bixinta dhaqaalahaasi oo ku xihan in saldhiggan la dhammaystiro adeegyadiisa aas-aasiga ah anigu waxaan diidanahay ma jirto oo waayo qof dhaqaala haya ayaa wax diida ama oggolaada haddaan dhaqaalaba lahayn ka waran niman yahow waxaan idinka codsanayaa ka oday ahaan in arrintan xal loo helo weliba xal deg deg ah si aan u soo afjarno hawshan oo aan hore ugu soconno howlo badan baana sugaya xal waa la gaadhi oo ay warsamow ee middaasa ka walwalin ee ka walwarla'aw oo ka seexo oo ka gama dee walaal qarashkii loogu talagalay ee loo qoondeeyey waa lidi siiyey qarash kalena looma hayo miyaanad maqlayn waxaan kuu sheegayo war sidee wax kugu sheegaa kabtan bilaalow waan ku maqlaa aniga laakiin adiga ayaanan maqlaynin waxa aan kuu sheegayo waxaan dareemayaa in warkaygaba uusan kugu socon duca qabe in la isfahmo way fiican tahay qorshe ayaan ku soconnaa taas waa inaad ogaataa marka hore haddee qorshihii ayuuba ka mid yahay dhismaha xarunta booliiska waa in loo helaa dhaqaalihii lagu dhammaystiri lahaa taasi oo ah xalka ugu weyn ee aan doonayno in halkan aan ku gaarno akhyaaray horta wakhti badan baan wada hadlaynay 10 jeer baan anna idinla soo galay ragguna markuu rag waaweyn yahoo mas-uuliyiina waxaa la rabaa inuu isfahmo waxaan idiin sheegayaa saaxiibayaal marka horeba in aan ogaanno in hawshani dhammaanteen ay tahay mid noo wada taalla oo loo baahan yahay inaan wada jir u xallinno ma fahamteen haddana la doonayo in aan go'aan mid ah ka wada gaarno soomaaliduna waxay tidhaahdaa xoolo nin dhaqay lagama dhowro
marka xal baa loo baahan yahay hadalka in la isku tuurtuuro ma aha dantii guud baa meesha ka baxaysa adeer warsamow hadalkii adiga ayaa dhammeeyeyba aan ka dhabayno wixii aan ka doodaynay oo natiijo wanaagsan aan isla qaadano waayahay sheekh cilmi baa soo socda wakaas waddada dhinacaas ka soo maraya mar dhow shirki ayaa bilaabanaya oo furmaya oo ay tahay inaan ka qayb galno ee ina keena aan shirka aadnay السلام عليكم هرافيلان ديري وعليكم السلام صباح وناكسن جواهر حالتك ورم ولال ديري بريالكم ما يسأركنه سئت ولال جواهر ولا في عنيهي بل سوى حجرت حقيقة شقلاءان تاس وحان هين مجران إذن قرضي هذا حليقا وحان كوشيغيا إن شقدي ذا فنكا عد آني أباهنين جواهر سببتو waxaa jirto baahiyo badan oo kale oo xasaasi ah sidaas daraaddeed fan iyo fanaan ciddan kale ma jirto xilligan aan joogno magaalo iska filan way baan baahanta fanaaniin waayo way baa mas-uulnaynka ahaa qoritaanka afka aayow waana fanaaniinta wacyigelintaynanka ee mas-uulka gorotay diiriye jawaahirey waan fahmay walaal adaa kuwatee diiriye waxaan kuu sheegayaa in fanka iyo farshaxanka ay yihiin kuwa door weyn ka qaata soo noolaynta dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed waana wax wanaagsan waan fahmay jawaahirey alkasa waqtisho iyo leeyin waana wal rooga xilligii ada hool gal lahayd ee niyada qaar in sheeg diiri waad mahadsan tahay walaal jawaahir sida hufan ee aad ii dhiirigelisay saakay niyada qaar in sheeg diiri waana walka bahawal kasta waxaad i xasuusisay suugaan oranaysa shacabkii kadeed la kulmaa kuma waarayee mar un laga kor qaadi maasha allah waaba sii eta sheekada walka bahee kadeedka iyo kurbada maana malka waara doono insha allah waa runtaa taasi jawaahir cidna kuma waarayso walaal jawaahir fanka iyo suugaantu waxay ahaayeen kuwa aad loo qadariyo oo dadku ay jecel yihiin waxaanan door weyn ka qaadanay wacyigelinta ummadda waan ogahay walaal diiriye qadarintii waa loo hayaa doorkii aad ka soo qaadateenna waxay noqon doonaan wax lama ilaawaan ah inay jabtan wal kasta sideetiyo iyo haada doona jawaahir mar kasta waxaan xasuustaa sidii aan ahaan jirnay iyo hadda sida aanu nahay shaqo la'aan ayaan nahay kaalan faylan iyo bulshada kaga jirsan way ballan baahaya intii sin dul qaatan diiri gortay waan dareemayaa xaaladda jirto inay sabab u tahay inaan shaqo la'aan ahaano haddaan nahay suugaanleydii magaalada ogow diiriye inaysan etan dadkii hiddo iyo dhaqanka saldhigga anhaayi oo bulshooda hindho anhaayi dhina kasta wacyigelin iyo maaweelaba waa runtaa walaal jawaahir qof sidan iila hadla weli kuma arag deegaanka isku filan waxaa tahay marwo waxgarad ah oo fahamsan waxtarka fanka iyo suugaanta waana mid aad ku ammaanan tahay jawaahirey eed iyo amahadsanto diiriye waana fahansanto wal kasta mar kastana weliba na rajeeyey inay wal kasta sidii iyo haada doonan waan anfay lahaada doonan insha allah jawaahirey aniga qudheeda kama rajo dhigin inaan ka baxayno duruufaha nagu hareeraysan in muddo ah walka baxe insha allah way bananaynka baahanyaa dadaal iyo dulqaad dhammaantana dhibaatada waa lagula qabaa qaar badan oo bulshada ka mid ah ma haystaan shaqadoodii waa runtaa walaal jawaahir middaas waayahay diiriye manhakadaana dhibaatooyinkun daraadiyo hore an daree doono markuun jawaahirey waa runtaa loo hakan maayo dhibaatooyinka waa laysku soo noqon wixii nool adduunyada waa tii hore loo yidhi saas naftiyo weliba ha dareeree odaygii sheekh cilmi haaye ee diiriye ka qayb galaasee shirka ka dhiyo doonaa beledka iska filan ee mise ma ka qayb gala korta jawaahirey ninkaas dhallinyarada ah ee la socda sheekh cilmi waa kuma waan garan waayey
haa kuriha goosiidiyo ureedhankanagdii beledka isku filan hadda waan gartay jawaahir cilmi weyba usu aaminsanyaa in kurikun dhallinyarada ah marlamaad fursad la siiso usoo dadshe aan ka mid nagada jawaahirey walaal waxaan ku weydiinayaa ninkan dhallinyarada ah ee soo goostay dadka talow ma cafin doonaan wallaahi diiriya ma gordow laakiin shirka ka ogaada doonne habba meesha maxaa ka socda meesha waa isku fahmi la yahay fashil loo ka dhaca ka baqa meesha buu qaabatay ma sha Allah maxay tahay halla aamuso dadweynaha reer isku filan halla aamuso maanta waxaa shirka inoo guddoominaya ama inoo guddoomin doona odayaasha deegaanka isku filan waa oday warsame sharma arke iyo sheekheenna sheekh cilmi haddaba shirku waa inoo furan yahay hallees dhegaysto si deggan oo wanaagsan aan u dhegaysano odayaasha waad mahadsantihiin haddana waxaan ku rajaynayaa oday warsame bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dadweynaha reer isku filan oo dhammaantiin waad salaamantihiin waxaa weeye ilaahay baa mahadda iska leh meeshaan isugu keenay oo inoo suurageliyey shirkan aan uga hadlayno danaheenna kuwa guud iyo kuwa gaarkaaba marka shirku waa inoo furan yahay kabtan bilaal ayaan ku soo dhowaynahayaa marka ugu horraysa kabtan bilaal ku soo dhowow hadalka adigu aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay oday warsamow waxaan doonayaa inaan idiin sheego dadweynaha reer isku filanow in maanta shirkan lagu soo casuumay walaalkeen tahliil marka hore sidaas ula socda inta aanan shirka u gudagelin hala aamuso fadlan hala aamuso tahliil waa wiil reer isku filan ah ciddii taqaana iyo ciddii aan aqooninba waxaana uu soo dhammaystay xilligii loogu talagalay in loo sameeyo dhaqan celinta ma garateen dadweynow haddaba waxaa loo oggolaaday in uu ku soo laabto magaaladiisa isku filan dadkiisana uu nabadgelyo ku dhex joogo si uu bulshadiisa uga mid noqdana waxaa muhiim noo ah in aan annaguna garab u noqonno taasi ma isla garanay haddaba sida caadiga ah qofka marka dhaqan celinta la soo marsiiyo ka gadaal ayaa loo oggolaadaa in uu soo dhex galo bulshadii horey looga dhex qabtay balse isaga oo aan soo marin dhaqan celin looma oggolaan karo inuu dib ugu soo laabto deegaanka sababtoo ah halis badan ayuu innaga noo keeni karaa sidaa darteed waa in loo oggolaado in uu ku soo laabto deegaankiisa idinkuna gacmo furan iyo farxad aad ku soo dhowaysaan aad iyo aad waad mahadsan tahay kabtan bilaal adigaa mudan oday warsamow aahay dadweynow shirkii weli waa noo socdaa waa ku mahadsantihiin sida fiican oo laysu dhegaysanahayo haddeerna waxaan hadalka siinayaa sheekh cilmi sheekh cilmi ku soo dhowow waa mahadsan tahay oday warsame waxaan doonayaa inaan idiin sheego in aan booqday ninkii tahliil ahaa wuuna ii sheegay in noloshiisa carruurnimada iyo waxyaabihii uu soo maray oo dhan ma fahanteen waxay ila noqotay in ay muhiim tahay inaan idinla wadaago arrintaas waa mid mudan in laga garaabo warniyahow qiirada iska daaya waadad og tihiin ninkan tahliil ah meeshu ka yimid haddaan laysindhatirayna halla aamuso war dadweynow halla aamuso
hana la isdhegaysto oo hadalka ha layska maqlo soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal kama dheera waa inaan isdhegaysanno sharmaake hadalkaaga sii wado warniya hoos wacani dhegaysta wax la oggolaan karo maaha in magaalada wax khatar gelinaya ay ku soo laabtaan annagoo ogsoon waxyaabihii la soo maray haddaba tahliil oo kale bulshada inuu soo dhex galo waa khatar cadiim wax macquul ah ma aha waana aragtideeda waayahay tahliil haye hadal adeer bal adiguna hadal marka hore waa idin islaamayaa dhammaantiin magacaygu waa tahliil waxaan filayaa in dad badan oo ree isku filan ah ay garanayaan maadaama aan ka mid ahay dadkii ku dhashay magaaladan isku filan aniga oo 13 sano jira ayaa laygu qasbay inaan ku biiro ururkaas argagixisada weliba aniga oo raali aanan ka ahayn ilaa haddana aan la joogay ilaa aan ka soo tago ugu dambayntii waxaa fursad i siiyey xarunta dhaqan celinta taasi oo ii suuragelisay in aan wax ka barto qaladkaygii aan hore u galay haddana waxaan doonayaa inaan dib ugu soo laabto deegaankaygii isku filan si aan markaasi dib ugu bilaabo ganacsigii aabbahay uu lahaa ee magaalada uu ka wadi jiray idhegaysta argagixiso meel kuma laha deegaanka isku filan haddii uu ku dhashay iyo haddii uusan ku dhalanba namaba soo galaan ka jooga kala qaybsanaanta iyo hadallada isjiirjiiraaya waxaa tihin dad danwadaaga oo isku deegaan ah wixii idin dhimana ay wada dhibayaan wixii horumaruna ay idinka dhexeeyaan waxa aan ka shaqaynayno waa dib u heshiisiin iyo inaan deegaankeenna dib u dhisno marka naga aamusa oo hal la isdhegaysto waayahay war dagaal iyo buuq waxba laguma xalliye maxayn samaynaa niyow